noloshu way caqabado badan tahay mar walibana sida aad wax u rabto waxba kuguma qabsoomayaan imise isbedel ayaad samaysay oo aad ku fashilantay waxaad isweydiinaysaa maxay tahay sababta aan maalin walba u fashilmo maxay tahay sababta aanan isbedelka u samayn la'ahay mid baan rabaa inaan kuu sheego dhammaan dadka guulaystay ee dunida daafaheeda ku nool waxay ku guulaysteen waa dulqaad iyo isku day badan kaas oo ugu dambayn ay ku guulaysteen badankeen maba garanayno hadafka iyo waxa aan nolosha ka hiigsanayno taas oo ugu dambayn fashil ku soo dhamaysa mustaqbalkeena qofkeen kama fakaro inuu isbedel ka sameeyo nolosheenana waxayba iska naqatay mid routine ah waxaad arkaysaa qof muddo 5 sano ah hal shaqo gacanta ku haya oo aanan wax kala samaynaynin wax kalena aan noloshiisa ku soo kordhinaynin waxna aanan ka qabsan qofkaas ma khasaare ayuu ku sugan yahay mise faa'iido qofkaas khasaare ayuu ku sugan yahay sababtoo ah 5 sano ama 6 sano ama 10 sano ayuu hal meel iyo hal shaqo ka shaqaynayay nolosha isbedel kama samaynin qadaas shaqo ka bedelan ma uusan qaban wax kale oo nafsadiisa u qabsaday oo dhihi kara maanta nafsadeyda waxaasan u qabsaday ma jirto sidaas darteed qofkaas khasaare ayuu ku sugan yahay noloshu waxay u baahan tahay challenge oo ah in la challenge gareeyo in caqabada mararka qaar ay ka hor imaadaan nolosha ayaa u baahan noloshu waxay u baahan tahay in la dhibo haddaan la dhibin waxba ma qabsato marnaba ha ka cabsan waxa aad qaban lahayd haddii aad ka cabsato inaad hal tallaabo horay u qaado weligaaga meeshaas ma dhaafaysid bal maanta isweydii maxaad qabsatay nolosha adduunyo ee aan ku meelgaarka ku nahay maxaad ka qabsatay oo aad dhihi kartaa a b c d waxaas ayaan qabsaday bal maanta isweydii aakhiradaada maxaad u shaqaysatay adigoo laga yaabo ilbiriqsi gudaheeda inay geeridu kugu timaado waxaa qurux badan si noloshaada u qurux badnaato dadka dhexdoodana aad sharaf ugu yeelato inaad hadaf iyo wax la taaban karo la timaado dhallinyarada qaarkeen waxaa mustaqbalkoodii iyo wakhtigoodii la qaybsaday aaladda la yidhaahdo baraha bulshada taas oo wakhtigooda inta ugu badan ay ku bixiyaan qofka guulaystay waa kan leh himilo kaas oo aan weligiisa ka niyad jabin dadka ka cabsada inay guulaystaan marnaba ma dhadhamin doonaan farxadda guusha weligaa ha soo hadal qaadin guuldarro adeegso ereyada ay ka mid yihiin rajo rumayn iimaan iyo guul naftayda iyo naftaadaba waxaan u rajaynayaa inay isbeddel la taaban karo samayso si aan u dhadhamino midhaha isbeddeladaas oo aan hubo inay guul ku soo dhammaan doonaan guusha iyo farxaddu waxay ku jirtaa noloshaada inaad isbeddel ku samayso inaad iskuday samayso dhaqaaq ha cabsanin qofka iskudayga sameeyo haddii xitaa iskudaygaas uu guuldaraysto iskudayga labaad iskudayga saddexaad iyo iskudayga afraad waxay ku soo dhammaan doonaan iskudayo natiijadoodu ay noqoto guul muuqaalka maanta halkaas ayuu inoogu egyahay gaarsii saaxiibadaada kale wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh